aad iyo aad baan idin salaamaya soo dhawaada daawadayaal qoysaska qurbaha markii aan u fiirsaday dhibaatada ugu weyn ee qabsata ama sabab u noqotay inay burburaan waxa ugu waaweyn aniga aragtideeda markii aan soo koobay saddex kow waa iscaawin la'aan talabaad isxurmayn la'aan iyo tasaddexaad oo ah is-aaminid la'aan saddexduba waxay sababayaan nolosha qoysaska qurbuhu waxay ku dhisan tahay waa iscaawin ninka iyo gabadhu waa labada qof ee isugu dhow ee nolosha wadaagaya sidaa daraaddeed halkan markii qurbaha ku nool yihiin uma noolaan karaan sida waddanka inkastoo meel walba ay mudan tahay inay iscaawiyaan hase yeeshee halkan iyaga aabe iyo hooyo iyo gacal iyo cid walba isu ah marka hadday iscaawin waayaan waa dhib aad iyo aad u weyn ta kale xurmayn dadku maadaama inta badan iyagu nolosha wada qaataan wada joogaan xurmayntu waa xadhiga dadka isu haya waa waxa keenaya dadku inay naxariis isu qaadaan jacayl isu qaadaan inay dadnimadoodu kobocdo qodobka saddexaad ee aan sheego wuxuu ahaa is-aaminaadda waxa weeyaan qurbaha waxa aada ugu badataa war sheekada mararka qaar waxaad la kulmaysaa rag sidii dumarku raalli ahaadaan dumarku unbay waxa dee moogta inay sheekada wadaagaan oo sheekada isu gudbiyaan oo maxaa kordhay maxaa laakiin marar badan waxaa la arka rag sidii oo kale ah kaalintii galay waxaana keenaya meesha lagu nool yahay iyo sida loo nool yahay marka labada qof hadday noqdeen laba qof oo is-aamina waxa weeyaan hadalka isku aamina hantida isku aamina hawsha isku aamina waxay ka mara dhalinayaan himilada ay leeyihiin ama meesha ay u socdaan marka waxaan kusoo koobayaa qoysaska taladan bixinaya waxa weeyaan saddexda qoysaska doonaya inay jiraan saddexda iyo inta in ka badanba laakiin waxaan kusoo koobayaa dee meel la qabsaday inay yeelato waxa weeyaan in iscaawinta aada loo xoojiyo laba is-xurmeynta aad iyo aad bay muhiim tahay qodobka saddexaad is-aaminaadda in la is-aamino la is ahaado la istirsado cabdishakuur maxamed soo sii heersaraa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu